عليكم ورحمة الله kusoo dhawaada Dambar Academy muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa sida loo iibsado hosting and domain muuqaalkanna waxaan u duubaynaa arday kamid ah ardayda Dambar Academy qaasatan batch 3 waxaana ka faa'iideysan kara dhammaan ardayda Soomaaliyeed qof walba oo jecel waxaan soo gelin doonaa YouTube channelkeena marka haddii aad rabto inaad iibsato hosting and domain waxaa lagaaga baahan yahay laba shay marka koowaad inaad haysato Mastercard inaad haysato oo online payment aad ku samayso marka labaad waxaa u baahan tahay inaad haysato Gmail account inaad haysato sababtoo qolooyinka aad wax ka gadanayso waxay kala macaamili doonaan Gmailkaas ayagay kugu soo diri doonaan wixii information waxaa abuuray Gmail hadda oo testing ah oo aan ugu talagalay inaan ku gado Dambar batch 3 Gmail ahaan abuuray waxaan booqan doonaa akoonka company-ga ay ku qoran tahay hostigator.com okay waxaan booqanaynaa linkiga ugu horeeyo waan booqan karnaa sidoo kale kaas AdSense ku jiro xayeysiin waa iska dhaafaynaa midkaan kale aan booqanaynaa marka website-ka soo galno baga ugu horeeyo waxaan la tusi doonaa design-kan waxaan imaanaynaa qaybta ay ku qoran tahay hosting waxaa ka sii dooranaynaa shared hosting ayaan ka sii dooranaynaa marka waxaa jirto 3 plan saddexdan qayb baa jirto kan waa kan ugu yar waxaa awood u yeelanaysaa inaad saarto single website hal website kaliya kan dhexe ay ku dhahayaan waan kugula talinaynaa asigana waxaa saari kartaa unlimited anaga kan ayaan gadan doonaa kan waa business class xoogaa dhinaca qiimaha ayuu ka badan yahay waxaan dhihi doonaa marka buy ayaan dhihi doonaa halkan markana la keeno waxaana la rabaa inaan gelino domainka magaciisa inaan gelino okay halkan waxaa ku diyaarsan .com.me waxaa u baahantahay kaliya waxaa u baahantahay inaad ku qorto domainkaaga magaciisa inaad ku qorto tusaale anaga domainkeena waxaan ka dhiganaynaa Dambar students aan ka dhiganaynaa okay kadibna meel banaan halkaas oo kala click iska siinaynaa .com inaan gadanaa rabnaa marka wuu raadinaa haddii available uu yahay wuxuu ku dhahaa waa available waa free haddii aad geliyo hadda domain horey loo qaatay haddaa dhaho Dambar Academy.net oo kale haddii aad dhaho okay waxaan dhahaynaa Dambar Academy.com iyo .net labadaba anaga waa haysanaa .com waa la haystaa .netna waa la haystaa soo ma marka waxaan dhahaynaa Dambar students marka waa inaad iska fiirisaa waxa aad qoranaysid saxnaantooda mar haddaad gadato waa saa u gadata le marka halkaasna ugu horeeya domainka waa free hoosa u soo baxaynaa halkan waxaa jira wax loo yaqaan domain privacy waxay ka qaadi doonaan $14.95 oo yearly ah marka domain privacy-ga ma u baahan waa iska qaadaynaa waxa loogu talagalay waa arki doonaa website waxaa jiro laga soo raadiyay xogta domainkan marka wuxuu bixin doonaa website-kaas qofka iskale addresskiisa Gmail-ka uu degan yahay marka waxaa loogu talagalay dadka waxyaabaha sharci darrada sameynaya anaga marka in la soo raadiyo macnaheedu noo sameynaysaa waa ka qaadaynaa halkan waxaa ku dooran hosting-ka aan gadanayna noociisa labadii kalena waa kuwan kana ku daysanaynaa inta bilood ee u baahannahay inaan gadano waxaa jiro 1 bil 6 bil 12 bil 36 bilood oo kale tusaale anaga haddii aan dhahno 6 bilood marka hadda waxaa nagala qaadi doonaa calaa bil $12.95 marka la gaaro 2023 bishanaad 6deeda oo naga dhacaayana calaa bil waxay noogu dhufanayaan $12.95 marka kan oo kale wax discoona ma helaysid marka hal sano laakiin tagtid fiiri waxay kugu dhufanayaan $5 waa bres waxaa helaysaa discoona helaysaa xareena hal 6 bilood tijaabinayna marka hal bil inaan gadanaa rabnaa halkan waxaa gelin doontaa emailka aad soo samaysatay halkan waxaa gelin doontaa emailka ku celin doontaa marka aniga inta tab cusub imaanaynaa waxaa soo koobiyeynaa emailka aniga hataa magaca si qaldan oo iiga qormay laakiin mushkilad ma lahan meesha aan rabay Dambar waa b iga qabtaabsoontay mar kale waxaa dhahaa ku celi halkan waxaa lagaa rabaa inaad abuurato password-kan ma ahan kan Gmail-kaaga waxaa lagaa rabaa password oo gaar ah hadhow waxay ku abuuri doonaan area loo yaqaano
customer portal ayay ku abuuri doonaan. waa meesha hostingkaaga aad ka manage garaynaysid. tusaale aniga waxaa iska samaysanaa password cusub ayaan samaysanaa. okay. inta waxaa lagaa rabaa security pin ama customer pin wax loo yaqaano oo 4 number. 4 number waxaa loo isticmaalaa haddii cilad ay ku qabsato ee aad la xiriiri doonto kambanigan, waxay ku weydiinayaan binkaasay ku weydiinayaan. marka anaga waxaa dhahaynaa 2022 aa binkeena ka dhiganaynaa. waa xaqiijin lagu caddaynayo qofka akoonkan iskale inaa adiga tahay. okay. halkan waxaa lagaa rabaa magacaaga. tusaalahaan magacaan waxaa ritaa ku qoran kartaa. waxaa dhahaynaa Dambar Academy Students aa dhahaynaa. okay. marka inaa kala qaybinaa fiican. first name kalaasaa gelinayna last name-ka. kambaniga waa optional, waxaa iskaga qoraynaa Dambar. waxaa lagaa rabaa phone number. kambaniga numberkiisaa gelinaynaa 248. adresska waxaa dhahaynaa Muqdisho. adress 2 waa optional. countryga waa dooranaynaa oo Soomaaliya haddii aad doorano waxaa heli doonaa discount, laakiin qaybta hoose waa arkaynaa marka koowaad waxa aan ku faa'iideynaa Muqdisho. waxaa dhahaynaa Banaadir. inta Texas state-kan haddii aad doorano Soomaaliya waba naga bixi doonaabo. hadda Soomaaliya haddaad doorano automatic awdal waxaa dhahaynaa Banaadir kasii dooranayna. okay. halkan waxaa lagaa rabaa inaad geliso waxa aa wax ku gadanaysa. anaga mastercard adeegsanaynaa. marka intaanan meeshaan gelin hoosa usoo baxaynaa. waxyaabahan security-gan iyo lacagahan ay nooga qaadanaya anaga lacag uma hayno, waa ka qaadaynaa. hadda 6 bilood waxaa heli nagala rabaa $90. halkan waxaa jira wax loo yaqaana carbon code. waxaan ku qoraynaa waa code lagu helo free. waxaa dhahaynaa start code validate aa dhahaynaa. haddii naloo ogolay automatic waxaana la siiyey $37. waxaa noola dhaafay lacag $60 $50 gaarayso. 6 bilood waxaa ku heli doonaa $37. waxaa jiro special mid kale ah. waxaa dhahaynaa come back to validate. come back to asiga wax badan kuma aanan helino, waxaa ku helnay lacag yaraa ku helnay. sababtan waxay ku xiran tahay sida u qornay come back to. marka koodadkan come back to iyo waxyaabahan waxay ku xiran yihiin ayaga waxa aa gadanayso. salaana marka hore u baxaynaa 1 bil ayaan gadan rabnaa. inta waxaa ka dhiganaynaa 1 bil. hoosa usoo bixi doonaa. hadda 1 bil waa $19. haddii come back to aa iska tirno aa dhahno start small letter start code kadibna waxaa dhahaynaa validate. anaga transactionka aa gadan rabno waa intaasoo. marka kambanigan hadda totalka uu naga rabo waxay $30 $19 noo dhaafeen $11. waxaa soo dhammaystiraynaa marka xogta nagala rabo. halkan waxaan gelinaynaa magaca qofka kaarka ku qoran. sida uu mastercardka ugu qoran yahay ayaa lagaa rabaa inaa u geliso. aniga hadda sidaas u qoran yahay. halkan waxaan gelin doonaa numberka kaarka ayaan gelin doonaa. asigana kaarkaaga sida uu u qoran yahay ayaa lagaa rabaa inaa u geliso. halkan waxaa lagaa rabaa kaarkaaga koodkiisa inaad geliso. wuxuuna ugu qoran yahay kaarka dhabarka dambe ayuu ugu qoran yahay. halkan waxaa lagaa rabaa inaad geliso kaarkaaga waqtiga uu dhacayo. wuxuuna ugu qoran yahay qaybta hore. waa meesha ay ku qoran tahay valid ay ku qoran tahay. okay. sorry. waxaa ka dooranaysaa bisha iyo sanadka uu kaa dhici doono. intaan marka aad dhammaystirto dib u laabo. xogaha iska hubi meeshaan aad soo gashatay. waxaa dhahaynaa hoos u soo bax. intaa imaan doonaa waxaa dhahaynaa I agree waa hubnaa. kadibna check out. bismillah. waxaan ugula haystaa zip codeka Soomaaliya waa 252 weliba 252 6 252 256 aa dhahaynaa. kadibna waxaa dhahaynaa check out. wax yar ayaan sugaynaa. automatic waxay noo sheegi doonaan inay lacagti jarteen oo akoonka ay noo abuureen iyo in kale.
okay sidaa aragnaba payment complete kan waa iska save garaysanaa payment complete ayaan ujeednaa sidoo kaleetana waxay dhisayaan inay akoonkeeni diyaariyaan marka akoonka markay diyaariyaan waa arki doonaa akoonka ay noo abuureen iyo sida aan u access garaynayno waxaa sii tegi doonaa gmailka refresh automatic waxay noo soo diri doonaan informationkaas ayay noo soo dirayaan gmailka ugu horeeyo waxaana loo soo diri doonaa meeshaan loginka iyo waxyaabahaas baasweerka inaad gadatid inta waa biilki waxyaabaha aa wax ku gadanay iyo lacagtii noo soo bixi doono kanna waxaa noogu soo bixi doono sarfarkaaga domainka aa gadatay magaciisa waa kana noociisa name server wax la dhahaa jiro name serverkiisa waxa uu yahay server ip addresskaaga iyo waxyaabo lamida haddii aa u baahan tahay si baalka inaad tagto marka waa arkaynaa weliba building ay ku wadaan marka akoon sidaan u furato laba midaa dhacdo in automatic markaas uu hore kaaga shaqeeyo iyo in waqti yar uu u baahdaa dhici karto waa arkaynaa okay way noo dhameeyeen halkan waa iska xayeysiin waxaa dhahaynaa escape okay weli waxay nagu sii wadaan xayeysiinta waxaa dhahaynaa hoos usoo baxeynaa go to dashboard aa dhahaynaa waxayna gey doonaan environment customer portal ah meeshaan waa meesha aa kusoo geli doona hadhow email addresski iyo basswordki aa abuuranay aa kusoo geli doono tusaalahan haddii aa ka baxo aa iska dhaho log out sidee usoo geli doonaa waa isla arkaynaa emailkaana waa ka tegaynaa tusaale ahaan haddii aan rabo inaan soo galo waxaa dhahaynaa hostigator website asency waan iska dhaafaynaa waa israacaynaa engineeria sign in portal halkan waxaan gelin doonaa email kenya aan gelin doonaa next waxaa gelinaynaa passwordka kadibna waxaa dhahaynaa login halkan marka maxaa dhacay meeshaan sorry caps loga ii daaran login aa dhahaynaa halkan marka waa meel mar walba lasoo gala ma ahan waa managementiga haddii cillad ay kugu dhacdo iyo waxaa laga ogaadaa haddii hostingkaaga goorma u dhici doonaa haddii aan hosting ku dhufano hostinno badan haddii aad samaysato intay soo geli doonaan anaga hostingkeeni waa kana wuxuu naga dhici doonaa bisha 12aad 6deedoo naga dhici doonaa domains haddii aa imaano ayagana waxaa arki doonaa domainka noo diiwaan gashan ay noo sameeyeen asigana goormuu naga dhici doonaa cashirkana cashirka ku xiga waxaan rajaynaynaa inaan soo duubno sidee loo isticmaalaa inaan ka soo hadalno ayaan rajaynaynaa aadaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu